بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب الشانل كي كحرن ومركلي ولاشين سارة شانلي مقال عصب عشب فضوط أيان إذي مدامانتنا ما شاء الله قابكاس أي ودنبين كسب بحذي وفيش بيغا ما شاء الله عدسي دلير بدن أو كحرن شانل كي يقصو عدسدين كدب qaabkii aan u diyaariyey waxyaabihii aan ka diyaariyey ka faa'iideysi wanaagsan halkan waxaa ku haystaa samakiga isteega ah malab waxaan kaloo ku haystaa carfiska oo malayga ama samakiga babrika cusbo fish masala iyo kabsar iyo toon aan isku soo tumay qaabkaas ayaan samakiga usoo jarjarto maasha allah waa qaab isleysa sida biskeeti ahna usoo jarjarto haddana waxaan ku darayaa qiyaastii malab hal qaando camal ma sha Allah waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan insha Allah intaas ayaan isku soo qasayaa biyo ayaan ku soo darayaa qiyaas yar insha Allah markaan si fiican iskugu soo qaso kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah taala qaabkaas ayaan usoo qasay xafaafteeda haddana samakigii ii diyaarsana ayaan kusoo guraya si fiican ayaan u dhexgelinaya insha Allah markaan si fiican isku soo dhexgeliyo waan carfiskii dhanaanko dhan dhexda oo kasoo galo ayaan isku soo laabanayna insha Allah qaabkaas ayaan kusoo dhameeyay xafaafteeda haddana waxaan soo saartay dabka birti saliid yar ayaan soo marmariyay saliid badan ma kusoo shubin sidaa wada arkaysaan samakii oo dhan ayaan kusoo dubaya insha Allah markaan soo dhameeyo ayaan isku soo laabanayna halkan waxaa ku haystaa 5 qaando oo mayonnaise ah 5 qaando oo tomato sauce ah samakii waan soo dubay rooti ansalaato basal aan wareeg u soo jaray iyo xaal xabo oo yaanyo ah intaas ayaan isku soo diyaarinayaa insha Allah haddana waxaan bilaabayaa inaan soo diyaariyo rootiga ayaan mindi ku soo jeexjeexay dhexda markii aan ka soo jeexjeexo ayaan ku soo gurayaa insha Allah xabad ugu horeyso ayaan idin tusinayaa biidnillah qaabkaas wacan ila socdo insha Allah waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan rootigaan soo kala go'aad sidaa wada arkaysaan axbaabteeda alaabtan aad ay fudeed u tahay iskaabulada iyo qofkii howl fudud rabo kowlabo soo kasoo tuurnaya ma sha Allah samakigan xataa hadii dubitaankiisa dhib ku mid ka gasac waa isticmaali kartaa dhib malaan laakiin qaabkan xataa wuu fudud yahay ma sha Allah kow mayonnaise ayaan soo marinayaa insha Allah axbaabteeda sidaa wada arkaysaan si fiican markaan mayonnaise ku soo mariyay kadib haddana waxaan marinayaa tomato sauce-ka qaabkaas ayaan ku soo wadayaa insha Allah markii tomato sauce-ka aan mariyay kadib waxaan soo saaraa insha Allah samakigii oo ii diyaarsanaa waxaan kaloo soo saarayaa qudaartii kale yaanyadii ansalaatadii iyo basashii qaabkaas ayaan ku soo wadaa axbaabteeda insha Allah markii aan soo dhameeyo oo aan miiska soo wada saaro saxan ku soo diyaariyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah sababtoo video ayaan ugu dheeranahay muhiimadu waa hal xabo iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay waa aragteen ma sha Allah taas ayaan ku soo wadaa insha Allah ugu dambeyn qaabka uu ku soo baxo waa ila wada arki doontaa insha Allah markii aan soo diyaariyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah qaabkaas ay ugu dambeyn ku soo baxay axbaabteeda ma sha Allah juice-kii ma ka maqna mango juice waa ma sha Allah
nicmooyinka aan haysan ilaahay ha noo barakay, intii aan haysan ilaahay ha siiyo. casho ayaa ku dhan maasha allah. haddii aad nagu cusub tahay soo dhowo, please subscribe. haddii aad horey noola joogto keesh videoga like gare, asxaabtaada iyo eheladaadana u sii share gare. waxay fikradaan xagga commentiga iigu soo qora, fikradihiina waa ii muhiim. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. jazaakumullahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.